Today we're going to talk about, I know last week when we did back office training, a lot of you made a lot of questions, and I find that the more we talk about it, the more things we can clarify. So the first thing I do is I join the business. I am sitting down with my upline. What do I do next? Is the first step is select your smart buy. What's a smart buy? A smart buy is an automated monthly delivery of products that you can choose and decide, this month I want Fountain of Life. This month I want toothpaste. This month I want shopping credits. This month I want Fairy Flawless. Whatever you want, you select it, you set it, and then you forget it. Every single month on the same date, the order is going to be processed. Okay? If you are a shopper, you can also choose to have a set amount of shopping credits to be accumulated monthly. That means that if this month you don't want to receive products or you don't want to have inventory, you can select shopping credits and save them. sanadkii iga dhiman subxaanallah waxaan bilaabay markay ahayd June sanadkii la soo dhaafay 2020 maxaa iga hadhay maybe ku jirna hadda soo maha 1 month hal sana jirsanaya wada baldagaya moogtay bartigiga ma noqon subxaanallah ganacsigan intii aan soo galin Opulence Global ganacsi kala soo I'll quick share my story. Although I haven't write my story down, but I kind of summarize a little bit. The reason I joined Opulence Global was because I'm a mom of 3. I'm all by myself, and I really hated waking my kids up every morning while they still want to sleep longer. I wake them up, I take them to childcare, I drop them off while they're crying after me, and that really hurt me the most. And I always dreamed about having time for my kids, so I have to rush them every morning and wake them up and rush them, drop them off at daycare and leave them there, and barely have time with my children because we be working 5 days a week, 8 hours. You come home, they're tired, you're tired, you don't have energy to spend with them. That's the reason I joined Opulence, and my friend Amina shared with me, and I didn't even have the time to yaa ka dambeeyo aasaasay waxa ka dambeeyo aasaasay halka idinka muuqdo loo yaqaan Ramin Iskaal waxa weeyaan Canadian Iranian subhanallah nin waxaan radaa aad u maskax badan weeyaan markaan eego anigu qiimeeyay noloshiisa wax kale ma waxa weeyaan qaabka uu u design gareeyay company-giisa qaabka dadku ugu faa'iideynaya is very different company-yada kale marka la eego waxa idin sheegay la mid ma aha company-yada MLM-ka ee kala xubka ka duwan yahay ninkani markuu shanaad jira waxa nin milyaneer uu ahaa subhanallah isagu waqtiga dhaqaale haystay 30 sano industry ku jiray 15 sano ka hor intii aanu bilaabin company-giisa aqoonta wuxuu lahaa industry-ga waxa uu qoray buug loo yaqaan Forensic Network waana buug uu nagu siiyo training nagu bixiyo every Tuesday talaada kasta habeenkii uu ku bixiyo wax kale ma ahay muxuu time-ka noo gelinaya dadka Opulence Global alaabta suuq geeyay anigu aan kamid walaasha farax kamid walaala kale kamid in ay bartaan aqoonta uu leeyahay aqoontiisigu nagu shubaya si aanu meeshii guul uga gaarno yani markaad eegtid intaas oo jeer ba isaga laftigiisa fahmay su'aalihii aan weydiin la iga jawaabay markaas isbarbardhig isla markiiba keenay waxa subhanallah Opulence Global man aqoon oo Canadian company intaas sano jiray Canada ku noolahay for the last 10 years almost 11 warna kamaan haynin haddana subhanallah isla markiiba kii hore barbar qabtay ismida ma noqon markaas waxa MLM industry waa dariiq fiican oo lacag lagu sameeyo laakiin company ismid ma aha waayo waxaad arkaysaa company-gan waxba ku fiican yahay company-dan kale ma laha marka company kasta eegin inta sano jiray eeg faa'iidada marka taasaan eeg qiimeeyay anigu isbarbar dhigay alxamdulillah kuma guul dareysanin waan ku guuleystay maalintaas soo galay ilaahay Opulence Global ma sha Allah wax wanaagsan ma kala kalamaan kulmin teamko iyo kordhay teamkayga hor marka la barbar dhigo 4 xaday haayeen teamkayga maalin kasta soo kulay halkan commission-kan ka sameyn jiray kan shaqo isku malaha waynu ka hadli doonaa commission-ka qaabka loo sameeyo waxa soo dhan insha Allah xagga dambe ka hadli iyo waxaanu kaga duwanay company-yada kale suuqa ku jira MLM-ka maadaama isku wada mid ahayn يعني ترينينada aan qaato I think yes maanta bishu waa 8 yes 9 cisho kadib actually 9 days ba ka haray subhanallah May 17 I don't know in la kordhin doonii in kale nasiibkayga anu bariga waxaan ku soo beegay waan ka faa'iideystay promotion-kan waxaan ku soo beegay June 14keedii markaan soo galay isagoo extension lagu sameeyay muddo kordhin loo sameeyay ayaan ku soo beegay ilaahay amarkiis warkamaan inuu jiro ana ku farfarxsan company-ga wala ma sha Allah tabaarakallah company-ga rabay baan helay meesha doonay daadigu iridahayo waxaan ku heesayo ku luuqeynaya alxamdulillah lahaya ayun ban kana arkay aan fahmay ka faa'iideyso retailer baan ka bilaabay markii dambana lifestyle advisor baan noqday
ملايين dadoo kale ka faa'iideystay sidoo kale igu horeeyay aniga hadda right now min April 17 keedii ilaa maanta aan joogno dad baa inta ka faa'iideysanay iga gaarsiidahay marka haddii aad marti maanta tahay tukaamadii aan ka soo hadalay waad arkaysaa faa'iidooyinkooda waad arkaysaa ka faa'iideyso haddii aad rabto inaad waxoogaa lacag ku dhiganto metel noo kale oo ka dhixin ka bilowda kasara aadayso aan haystaa ma sha Allah alxamdulillah fiican design-ka hoose waliba ka ciyaal ku leeyahay kamanigi muxuu sameeyay waa haddii aanu jirin waan samaynaynaa pandemicii markii la ogaaday inaanu meel u soconin maskina mandatory noqday dukaanada qaar bay ku qoran tahay markaad galaysid no mask no entry caadiya inta saa loogu sameeyay balaas ma soo galaysid khalaas naga joog sheekadaas adduunka ka jirta hadda mask dad wadin ma dhihi kar shopna ma baahan yani any meel ma gali kartid waa naga joog weyn stop ku qoran meel kasta inuu caadi dabiici noqday maski scarfkiga hadda saaru xidhay isagu ima kala duwana wallahi markaan baxayo Norway-ga noqday gaarigayga anoo saaray man xitaa marka qaar xidhanay awal waan iska siibi jiray waa waan tacawadi wuxuu la qabsaday ma ogtay subhanallah intaas aad u siiyay marka in uu sameeyo kamanigayga wax protection ku ah adiga familkaagi oo aad ka faa'iideysan okay maxaa mask inoo dheero protection isaguna kale oo halka idinka muuqda ayadana oo kamid ah ayadana wixii especially pandemic la isaga difaacay bahasha loo yaqaan ayadana microsilver protection spray oo natural ah oo aan lagu darin wax chemical ah wax alcohol lagu stress whatever sense that magac badan bay leeyihiin commercial toothpaste ka suuqa taaliya tan farqi baa u dhaxeeya waxay ku kala duwan yihiin ko fluoride baa laga bixin maxaa lagu bedelay microsilver oo qabata shaqadii ka fiican at the same time fluoride maxay leedahay dib laakiin tani ma laha so marka isbarbar dhigo adigu caqligaaga xisaabi waxaad eegtaa faa'iidada teebi kuugu jirta hadda maalin dhexdaas gabadh darsiga u sheegayo fluoride tan uga sheekin waxaan lahaa dhibta ay leedahay waxay soo iibsay koolgeed yaro hadda حيثيسية دي مالها كسرت أنا قلت جارك كلهين and 10 years of stain أما با يعني وحي أفكار كهري يعني color طبعا صنع أي remove قرينيسا حاجة ضمان تص ما حقولي أوكي 10 years of stain بعد ليه هاي حاجة ما حاجة قرب بالآخر هذا كوبسي بتقول لقديم جو قد medical help كقرص معها محاوني كلو قري تيلا نوان تصي دونت سؤال بعد تبى كقرن والدواء عادين لا لقماها وما بنانو وحين على شاطر تجان لكن at the same time تاني ما هو سمينية waxa la ogaaday oo maqaalo badan oo la qoray lagu sheekay meelo badan oo daraasad badan la sameeyay in fluoride la yiraahdo waxaan kamid ahay walaalaha commission weekly-ga qaata de maxaan kala yiraahdaa waxaan kala ka faa'iiday intaan ku jiray company-gan xaq dhaqaalaha sheegin inta qof ee customer ah ama ay sheegay teamkayga ah waxay habeenaan u taaganahay saacideynayo ama aan sheegay ii ducaynayo waxaas oo kale wax yani qofku dee uu helo waxa ugu qaalisan inuu dad helo adduunyada way sheegay waxa dadka ugu qaalisan inaad yani dad la hesho ama aad walaalo noqoto ama shaqo dhex marto oo dadkaas ay ku noqdaan family oo kale runtii sheegay waxa ugu badan aan markasta ku farxaa waxa weeyaan waxaan ka helay walaalo garab istaagan har iyo habeenba waxaan ku guuri ii noqday oo kale family waxaan ku dareemay waxaan idhaa sheegay waan xanuustay dhowr bilood ka hor operation baan galay dadkii ugu badnaa ee isoo wacayay wallahi alcadiim waan soo maray waxay haayeen teamka horena aqoon isku maanaan lahayn teamkaasaan isku wada baranay ilaa fahmay su'aalihii aan weydiin la iiga jawaabay markaasaan isbarbardhig isla markiiba keeno waxaan subxaanallah Opulence Global maan aqoonin waa Canadian company intaas sano jiray Canadaan ku noolahay for the last 10 years almost 11 warna kamaan haynin haddana subxaanallah isla markiiba ka hor barbar qabtay ismida ma noqon markaas waxa MLM industry waa dariiq fiican oo lacag lagu sameeyo laakiin company ismid ma aha waayo waxaad arkaysaa company-gan waxba ku fiican yahay company-dan kale ma laha marka company kasta ha eegin inta sano jiray eeg faa'iidada marka taasaan eeg qiimeeyay anigu isbarbar dhigay alxamdulillah kuma guul dareysanin waan ku guuleystay maalinta soo galay ilaahay da Opulence Global ma sha Allah wax wanaagsan ma wax kala ma kulmin teamko iyo kordhay teamkayga hor marka la barbar dhigo afar xaday haayeen teamkayga maalin kasta uu sii kordhay halkan commission-kan ka sameyn jiray kan shaqo isku malaha waana ka hadli doonaa commission-ka qaabka loo sameeyo waxaas oo dhan insha Allah xaq dambe kaga hadli iyo waxaanu kaga duwanay community kale suuqa ku jira MLM-ka maadaama isku wada mid ahayn يعني ترينينada aan qaato